dhacdal aad u layaab badan oo ka dhacday waddankaasi China, taasi oo xitaa dadkii magaaladaasi ku noolaa China ay ku tilmaameen dhacdadii abid ugu layaabka badnayd ee ka dhacday waddankaasi China, gaar ahaan magaalada Beijing. Soo dhawow channelku waa channelkaagii, subscribe, share, like wixii loo taaban jiray noo taabta. Thanks. Haddaba sheekadani waxay ku bilaabmaysaa bas joogay goobtiisii waa basaskii magaaladaasi ka dhex shaqaynayay Beijing ayaa waxa uu qaaday rakaab gaadhayay ilaa 4 qof. waa 2 lamaane iyo wiil dhalinyaro ah oo xilligaasi shaqada ka soo baxay iyo islaan waayeel ah. waxa kale oo baskaasi ku wehelinayay oo la socday ninkii driver-ka ahaa iyo gabadh adeega u ahayd amba sida u naqaan krishboyga. haddaba markuu baskii in cabaara uu soo socday dhexda xoogaa uu ku soo jiray ayaa jawigu wuxuu ahaa jawi adigu dee waa dareemaysaa saqdhaxa wahayd magaaladu waa dam cid maraysaa ma jirto, qabow daran baa dhacaya, abaara waa saqdi dhexe ayaa dareewalku siduu u socday ee wadada u hayay ayaaba wuxuu wadadii ku arkay 2 qof oo wadada dhinaceeda fadhiya. markaasi dareewalku wuxuu la yaabay 2 qof may joogin booskii loogu talagalay inay passenger-ku fadhiistaan amba dadkan basaska raacaya inay fadhiistaan booskii loogu talagalay. waad aragteeno meesha caalamka inagu halkeena ma lahayn, caalamku waxay leeyihiin meel basaska laga raaco, halkaasi may fadhiyin oo aad bay uga soo durugsanaayeen. deeto markii ay haddaba dareewalkii oo yaaban oo ka labalabaynayay inuu u istaago oo uu qaado iyo inuu iska dhaafo ayaa markii dambe waxa uu go'aansaday inuu qaado maadaama uu jawi aad u qabow dhacayay, dhaxana daranna ay dhacaysay. wuxuu sida khayr ah ka shaqayso deeto iska sii qaad. deeto markii uu u istaagay ayaa ninku dareewalka ahi markii hore waxa uu arkayay 2 qof. mar allaala markii ay baska saasi u soo fuuleen ayaa waxay noqdeen 3 qof. la socoyaa mar allaala markay baska soo korayeen ayaa dareewalkii wuxuu arkay inay 3 qof yihiin. deeto way soo koreen. deeto 3dan qofi waxay xidhan yihiin maryo waaweyn iyo koofiyada kuwan Chinese-ka kung fu ka ciyaaray sida u wareegsan. deeto siday u socdeen waxay fadhiisteen safka baska ugu dambeeya, 3 kursiye xagga ugu dambaysa ay isku dhijisan amba 4 kursiye isku dhijisan halka dambe halkaas ayay fadhiisteen. deeto gaarigu socday. gaarigu markii hore basku wuxuu ku jiray jawi degan, qabow oo nafisa oo buuq la'aan. mar allaala markii ay sidaasi u soo fuuleen 3daasi qof ayaa xaaladii baskaasi ay isbedeshay. naxdin dadkii passenger-kii 5 qof saarnaa naxdin baa ku abuurantay. deeto kolba waxay eegayeen 3dan qof ee halka dambe fadhiistay ee koofiyadaha wada xidhan ee maryaha waaweyn xidhan. deeto in cabaara markuu socday ayaa baskii waxaa 3da safe ugu dambeeya waxa ay fadhiisteen 3daasi qof waxa ugu dhowaa islaantii waayeeshahay. islaantii waayeeshahay aad ayay u naxday. deeto islaantaasi ugu dhoweyd ayaa waxa ay gashay jawi aad u daran oo naxdin iyo baqdin ay ka baqaysay 3daasi qof. deeto gabadhii caawiyaha dareewalka u ahayd amba krishboyga ahayd ayaa waxay aragtay xaaladii passenger-ka oo aad u daran. dabeeto gabadhii dareewalka caawiyihiisa ahayd ee krishboyga ahayd ayaa waxay isku dayday inay dejiso. ugu dambeyntiina waa ay dejisay. in cabaar gaadhiga markuu sii socday oo xoogaa sii socday ayaa islaantii ugu dhoweyd 3daa qof ee baska soo fuulay ayaa waxay bilowday
xaalad foodo ah يعني qaylo iyo buuq bay bilowday deeto waxay qabsatay oo ay ku booday wiilkii dhalinyarada ahaa kaasi oo in yar islaanta u jiray deeto dareewalkii baa istaajiyay wuxuu ku yiri maxaad ku haysataa deeto waxay tiri wuxuu iga xaday lacag deeto odagu buuq saa'ida meeshii ka kacay deeto ninka dareewalka wuxuu yiraahday buuqiina igala dagaa deeto islaanti waxay tiraahday boostada igu soo dhow igu daji ninkan halkaasan ka dacweynayaan aan OB ka qoranaya deeto boostadii ugu soo dhaweyd ayaa uu ku istaajiyay gaarigii amba baskii halkii ayuu ku dajiyay islaantii iyo wiilkii mar allaale markii saa u degeen ayaa islaantii waxaa ka soo fuqay naqas aad u weyn يعني قف نحسنه كلا دمان تقول نحسنه نقص وكتاجنا كرو مركون نقص وكسب حوا دريم كتسجيه ده طويل كي أيا باي حاجة خلنا بقول هذا نمر ده بوليس كان تجينا هاي نرسوك على صار ده توحك ترانو كحبكم ما يستطيع لعنا يا جماعة حدين لكن سي أنا قول نفط هذا أيام بتبادني ده طويل كوي هذا حكولة سيدا نفط يدوم بتبادني سي ده توحك ترى هذا يصدق قف نين كان دريول كاو رحتك السوق هذا ها saddexdan qofi ma yahayn dad caadi ah taasi oo ku cadeyn waxaana ii cadeynaysa bay tiri saddexdan qofi markay soo fuulayeen wax xinaayeen aad u waaweyn deeto mar alaala markay saa u fadhiisteen maryahoodii kor bay uga qaadmeen halkay cagahoodii muuqan lahaayeen wax caga oo muuqday oo dadkaasi lahaayeen may jirin adugu baskii uu sii socday saddexdan qof waxa dhexda ugu jira qof aad darxumo uga muuqato oo aad moodid inuu cabsan yahay oo gebigiisba xaaladiisa aad ka naxayso in cabaar ama ku baskii sii socday ayaa waxa ka dagay dadkii lamaanaha labadii qof ee lamaanaha ayaa nacni boostadii ugu soo dhaweyd uga dagay baskii ay saarnaayeen dareewalka iyo gabadhii kirishbooyada ahayd ee saddexda qofna ay soo fuuleen xagga dambe ka fadhiyeen baskaasi boostadaasi markuu ka dhaqaaqay dub il iyo baal looma saareen deeto adigu maalin baa ka soo wareegtay maalin markii ka soo wareegtay ayaa shirkadii uu shaqeynayay baska ayaa waxay dareentay inuu baskii deeaanu soo shaqo gelin deeto baaritaan baa la sameeyay baaritaankii markii la sameeyay adigu baska waa laga quustay in muddo waxa la baarayay saacado badan markii la baarayay ayaa waxaas saldhiga timaaday islaantii deeto waxay tiraahday baskaasi halkaasaan ka soo raacnay adoo xaalad sidii ay u soo raacday iyo wixii bay kaysay deeto waxa ku tiri baskaasi mar allaale markuu halka maraayo ayaa wuxuu ka qaaday saddex qof saddexdaasi qofna ma yahay in aadan cagaya luga leh laakiin waxa ahaayeen dad ruuxaana deeto ciidamadii amba booliskii oo bigaasi ka qorayay may rumaysan islaantan oo waxay sidaahdeen waa qof weyn oo ruuxaamiyo xasi aaminsan yihiin hadalkeedu waxba kama soo qaad deeto baaritaanadii markii la waday ayaa maalin iyo badh markii ay socotay baaritaanku ayaa waxa la soo helay baskii oo meeshii uu ku dhamaan lahaa maahine meel aan waxaan ku aad uga fog meeshaasi ayaa waa lagu arkay deeto ciidamadii ma meeshaasi yimaaday baaritaan baa lagu sameeyay deeto baskaasi dhexdiisa waxa laga helay saddex qof oo meyd ah saddexdaasi qofka meydka laba ka mid ah waxay ahaayeen gabadhii caawiyahayd iyo dareewal qofkii kale soo haray ku saddexeeya ahaa lama oga cid uu yahay deeto saddexdii meyd waa la qaaday deeto waxa la geeyay baaritaanka deeto markii la baaray waxa la ogaaday saddexdan qofi inaanay korkooda wax namariba aanay ku oolin deeto adigu internalkoodii baa la baaray oo ku jirtay wixii baa la baaray wax allaale wax kala sun oo dadkani ma jirto biyo ay u dhinteenna ma jirto nacni xaalad adigu qofku markuu wadna istaag kusoo boodo kale isaasoo kale u dhinteen deeto adigu baskii iyo wixii baa lagu noqday bas nambarkiisu wuxuu ahaa 370 qisadani xilliga ay dhacayso waa taariikh aad u fog oo nacni wax adigu baaritaano heer sare iyo waxa samay jirin adigu taariikhda ay dhacdayna waxay ahayd 1995 kii bahayd
adigu waa la baaray baskii dhexdiisa adigu wax allaala wax fara oo wax kale oo dee adigu cadayn ah oo laga helay may jirin deeto waxa la tagay istaankii uu baskani markii hore uu ka imaaday deeto waxa la baaray baaritaan badan baa la sameeyay waxa la soo ogaaday shidaal ilaa halkaasi geynaya baskaasi u yaala inaanu totally kuba jirin baska deeto adigu waxa la tagay baskii deeto shidaalka halka lagu shubo taangigii baa la furay deeto waxa lagu arkay taangigii dareere cas oo aan shidaal lahayn badrool lahayn naafta lahayn wax allaale wuxuu yahay aan la garanaynin ayaa lagu arkay qisadan ilaa right now wax cadayn ah iyo waxa dadkaasi u dhinteen iyo baskan waxa ku dhacay ilaa alaan lama oga dadkii lamaanaha iyo wiilkii dhalinyarada iyo islaamtii iyo wixii baa adigu de ka sheekayay sida qisadaasi u dhacday sidii islaantu sheegaysay way u dhacday oo sidaas dadku saddexdii kalena u sheegeen qisadan waa qiso aad iyo aad u la yaab badan dadka Chinahaasi Japaanku China ku noolina aad iyo aad bay ula fajaceen macani dee adigu wax u qaadan waaya ayay la noqotay adigana bal waxa ay dee aragtidaada ahna bal comment-ga nagu soo qol ma dadkan ma ruuxaamaha islaantu sheegaysaa dilay mise wax kala dilay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh channel-kana subscribe na saara